السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalihii qaaliga ah seetii ma fiicantiin caafimaadkiina aniga waa idin fiicana maasha allah waa sacdiyo aada idinkugu fiicanahay idinkana waxaan rajaynayaa inaad nabad qabtiin caafimaad qabtiin sidayda camal maasha allah waa idin mahadcelinaa mar walba kama daalo inaan idin mahadceliyo walaalahayga sida quruxda badan ay igula socotiin kommentidiina dhiirigelinta waan arkaa meesha kasii wada ayaan idin leeyahay maasha allah tabaarakallah waa idin mahadcelinaa mar walba soo dhawaada idin leeyahay dhammaantiin gacmo furan qalbi idin jecel kusoo dhawaada yaa walaashay fahiimo iyo walaalkay qaar maxaa dhexgala balaayada dhexgashay maxaa waaye balaayada dhexgashay maxaa waaye dadka maxaa dhexgala dadka isjecelba maxaa dhexgalan waa yaabee yaa maalmahan dambe waxaa waaye baraha bulshada noo soo dhigeen jecel fara badan inay isjecel yihiin inay isku faraxsan yihiin inay isku qanacsan yihiin baraha bulshada soo dhigay ahaayeen aan la soconay in badan haddana waxaan aragnaa farxadii kadib waxaan aragnaa haddana iyadoo laisku xumaaday khilaaf furiin maba dhihi kare ilaahay kuma keenin furiin ilaahu rabbiyo raxmaano furiin ha ku keenin khilaaf ayaa dhexgal gadaashan dambe waxaan aragnaa ayagoo haddana khilaaf oo fahiimo gooni u hadlaysa oo dhehaysa ha igu soo laabanin maku arki karo asagaa hadda cawada soo hadlay asaga ayaa soo hadlay saacado ka horo wuxuu dhahay walaal wiilka si fiican horta uu hadlaayay annaga dumar haddaan nahay waxaa waaye xanaaqeena meel ma jiro farxadeena meel ma jirto laakiin asaga maadaama nin rag yahay maasha allah aan leey maasha allah wallaahi waxaa waa geesi garab waayaan dhihi karaa wiilkaas runtii storigiisa hataa 6 bil ka hor aan dhageystay bishaaro wareysanaysa wallaahi waxaa waaye meel badan oo maray dadaal badan oo muujiyay oo wiil aad hardworking very hardworking waaysan aan ka dheehan haaya maasha allah waa geesi garab waaye ilaa iyo Zambia ilaa iyo Zimbabwe meel oo haweysanin Mozambique aan rabaa meel oo haweysan mal ilaa Kenya meel oo haweysan mal shaqo oo hadda ka soo shaqeynay malahan marka qofka sideeda banaanba dhalinyaro markuu yahay qof garab taagan oo caawinaya ama godfather uu haysanin wallahi waxa ay nolosha ku adkaanaysa noloshu way dhiban in badan ma fahmayaan dadka marka wiilkan horta waa wiil adag oo maasha allah teedi kalena adeeg waxa uu sii dheeri ebo aqli maxaa nin aqli qaba nin baraha bulshada oo xaaskiisa aan waxba ku dhehaynin oo caynaynin oo saas dhehaynin dadka qaar hadii ahaan dhalinyarada ficiisa hadii ahaan waxay dhihi lahaayeen markay iyada soo hadasho asintuu soo fadhiisay isla markii daqiiqada kadib uu dhihi lahaa naa saas baata naa habar baata naa kan baata naa saan baata uu dhihi lahaa sama ma dhihin qadar wiil aad u fiican wallahi maasha allah ilaahay ilaha ka haayo wallahi si sharaf leh oo aqli iyo geesinimo iyo ma ardu waaye aragnimo ay ku dheehan tahay sida uu hadlaa walaa 60 jir hataa uma hadli kara maxaa yeelay si qurux badan u hadli xaaskiisana waxba kama sheegin marka si nidaam leh u hadli maasha allah walaalay macaanay fahiimo dumarka inay isqabtaan ayaa fiican gabar walaasha inaa tahay inaan ku qabano waaye gabar walaasha inaa tahay ka sokana youtube le ayaan isla nahay wiilka walaalka banaanka barafka joogo walaahi wuxuu dhahay barafaan joogaa anigaaba dhibanba anigaaba qaboob joogo fahiimo walaashii waan jecelahay madaxay ii saaran tahay wax aan ku suubiyo mala waxaan ku suubin doonana male ayuu dhahay barafka anaa ku dhimanay qabowkaas joogo dhahay oo wadan qurbo la joogo wadan ajnabi wadan gaalo la joogo ehel iyo aan qaraabo ku joogin walaalay macaane wiilka qaboobka ka soo xaray dad waaweyn tihiin idinku wixiina farsameysta idinku wixiina dhameysta baraha bulshada sidii hore idinku kasi jirni farxadiini anaga markaa faraxsantiin anaga aan farxayna sooma laakiin hadii idinku ma aragtina buuq iyo khilaaf oo dhexdiina yaala anagana waxa weyn taabanaysa weyn soo gaaraysa wadada idinku xiranaan ahayn ma rabna khilaafkiina ma rabna farxadiina ayaan rabnaa sidii hore noo idinkoo faraxsan isgar fadhisiin qoslaysin soo fariisin jirteen saas nooga soo fariista saas anaga aan ku haysanaa wallahi baan midin saas aan ku haysanaa saas ku sii socda wiilkana soo xaray ka soo xaray banaanka ka soo xaray dabeelaha dhacay ka soo xaray qaboobka ka soo xaray cidlada ma fiicna runtii ma fiicna mar dambana ha ka soo hadlin arrintiina hoos u dhameysta ha ka soo hadlin inta soo fadhiisatay youtube-kaada ama meel kale soo fadhiisatay ama facebook soo fadhiisatay ha ka dhihin ha ka sheegin qadar waxba maxaa yeelay tan hadda uu asaga message-ka u dambeeyo soo diray cilmi ha kuu noqoto cashir ha kuu noqoto maxaa yeelay waxba kuma dhihin wuxuu ku dhahay malaha wanaag unbuu kaa sheeganaya xumaan kaama sheeganayn soo wax gartama qof wuxuu dhahay qofkii la joogo oo la noolay unbaa garanaa wadha fiimo wanaageeda anaa garanaya marka qof saas u hadlaa wallahi wuu yaryahay dhalinyaro saas u hadlaysa way yaryihiin marka maasha allah asagana maskaxda allah u ziyaadiyaan leenahay
marka horta wax kasta waa calaf haddii wada joog uu calafka uu yacni inaa isla sii wada joogtiin ilaahay qoran waa isla wada joogaysiin haddii la kala tagana wanaag ha lagu kala taga laakiin inaa kala tagtiin anaga maba rabna inaa isla joogtiin ayaa rabnaa farxaddiina ayaa rabnaa farxadda hore noo barteen rabnaa idinka ilaana baree maxaa noo baraysay marka hore farxaddii hore noo barteen ayaa rabnaa marka fahimoy walaashay qaali advice-kaas adoo kugu socdaa wiilka soo xaray soo dhaweey qabow ka soo dhaweey ma fiicna sidii shalay aa usoo dhaweysay oo walaaltinimada ku dhehneed oo soo dhaweysay ilaa meel dheer kasoo waday sidii iyada leh ha ahaata haddee kasii fiicnaata mahana gadaal ha ugu noqonaan kuleey walaashay qaali qadar ayaan usoo laabanayaa qadar maasha allah walaalkay qaali meesha kasii wad wanaaga aa wadid والله وان كفر حرونتي ساو هالليسي عاوز ساو هالليسي وان كفر ما شاء الله كما سي نقوناي لكن وحاواي ادفايس ان كسينايا ادو نرق الهي كادغي كورونا وفيهما وحاواي سيده هدا اسمينيsid dadaalka laba jibbaar meesha ka sii wad gadaal ha u noqonin dadka warkoodan ha qaadanin walaasha waaye shalay wanaagi iyo jaceelka aan nostisteen meesha ka sii wada idin leeyahay Soomaaliya advice-ka markaan gabadhii wiilka ka soo laabtay idinku socda war dadka isjecel lamaanaha qarniga maxaa idin daba dhiga comment-ida soo qoraysaan oo qashinka oo xumaanta oo caayada oo waxa waay wax la dhageysan karo ee jira oo niyajabka ka daaya lamaanaha war ka daaya ma qalaafan baa jeceshiin wanaaga kama talisiin dad isku faraxsan isla nool walaale jaceelkooda iyo farxadooda noo soo bandhigay dad aan baraale ka ahaynba dad badan oo aan ku jiro way ku faraxsan yihiin laakiin dad baaba raali ka ahayn inay raali ka ahayn waa loo wada jeedaa qaar comment ay ku soo qorayaan xumaan comment ay ku soo qoraan gabadhii kicinaya ilaa mowta qofkii markaas xanaaq u haya laga soo galaya fihimaday kicinayaan fihimaday baraasha ku ridayaan fihimaday ku kaceen marka waxa waay gabadhii ku kaceen madax ka xanuunjiyeen oo iidan waxa waay maadaama xanaaqsan tahay xanaaqay kaga faa'iideysanaan sooma cirkaas ay gashay comment-doodan waxba ha aqrin fahimoy qadar adna comment-dooda waxba ha aqrinin ka socda idin leeyahay hore u socda sida hore ugu socotay marka hore ugu socda dad badan baa role model u aheedeen maasha allah dad wanaagsan atiin dad isku faraxsan aheedeen dad badan idinku dayanay marka inaa hoos usoo noqotiin maaha hore ha loo socdaan leeyahay maasha allah hana dhageysanna comment-da marka dardaarankaasaan siinayaa walaalahayga Soomaaliyeed iyo wiilka iyo gabadha qadar iyo Fahimo intaasaan siinayaa marka barnaamijka halahaasaan kusoo gabagabeynayaa walaalahayga Soomaaliyeed subscribe saara channelka like-ta subscribe-ka comment-da sheegareenta intaba waa xagiina waan idin jecla dhamaantiin aada idin jeclahay ii sheegaree barnaamijka bye idin leeyahay waa idin jeclahay arrinta dambe xiiso leh iyo barnaamij kale oo xiiso leh salaamu calaykum waraxmatullahi